soo dhawaada khayraadka sharafta leh dhamaantii soo dhawaada ayaa idin leeyahay sina sheergareeya barnaamijku caawa waa badan yahay waraaqdaas wada barnaamijku caawa waa qoto dheer yahay qof walba oo Soomaaliyeed walka soo gala waa salaamaya marka koobaad marka labaadna waxaan rabaa inaan wax taabto oo mataqaana caawa qodob xasaasi ah ka hadlo Soomaalidu waxay dhahdaa nin run sheegay been sheeg marka nin run sheegay yani ninka ragga runta sheego lagu nacameeyo in lagu jeclaado ma aha taariikhda madow ee dhulbahantaha dadkan dhulbahantaha la leeyahay ay haysata baan doonayaa caawa inaan idin qaadaan dhigo dad badan oo Soomaaliyeed baa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo raba inay bartaan dadkan maxay yihiin daraawiish ba Abdullaahi Xasan Maxamed Xasan oo ku salaamaya tolkaaga waa lagu dhageeyaa caawa dhammaan khayraad sharafta leh sidoo kale Ibraahim Umar Maxamed waa ku salaamaya caawa waxaan doonayaa inaan ka hadlo taariikhda madow ee dhulbahantaha dadkan dhulbahantaha la leeyahay dad waxa weeye qarnigan la joogo 2018 ilaahay baa idinku dhaashaday 2018 qabiil la guumaysto maanta ma jiro Soomaali ma jiro qabiil iska daa wax kale oo maamul goboleedyadii baa waxay samaysanayaan maamul goboleedyadii baa waxay samaysanayaan jooga baa ku salaamaya qoraal soo qoro maamul goboleedyadii baa waxay samaysanayaan waxa la yahay qabiilada yarka baa maamul goboleedyadii samaysanaya waxa kamid ah qabiilada samaysanaya gabooye qabiilo kale oo badan marka xilliga kan la joogo isaaq baa guumaysta dhulbahanta marka daraawiish bi hoosta dabada la galaan daraawiish baa nahay taliyo horjoog aad baa ku salaamaya qoraal soo qorsi oo ku soo qabto barnaamijka caawa insha Allah waa qaada dhigi doonaa marka dadka noocaas weey dadka mataqaana ummadda Soomaaliyeed dhameeyay dadka cuqdada iyo balaayada dadku abuuray wallahi oo billahi tallahi maalin walba waa soo fariistaalka dhulbahantu waa saas dhulbahantu waa dad aan taariikh lahayn gun dhashay weeye dad isaaq maanta inteerteen ka doortay ilma adeeradoo dad maanta isaaq ka doortay weeye wax walba waa u sheega warsaa qaata warwaanada qaata wax walba waa dhaha waa laga kari la'yahay joogsada soo joogsada waa laga kari la'yahay bal maanta marka qarnigan aynu joogno dadka isaaq guumaysanayo oo maanta raba inay qabiil la xifaaltamaan waa kuwe maba jidho de maanta qabiil Soomaaliyeed oo la guumaysto maanta ma jidho aan ahayn dhulbahanta daraawiish baan nahay bay dhahan laakiin yaryarkooda iyo mataqaana waaweykooda waxaas يعني نيادي كستان نيادي كل سنة يعني وحنا نهاي دراويش وحنا نهاي دتكي دل كان سوي حرية بعنا وحنا نهاي كهلا أرجع بلك بعدي أنا رجع لي مركز البهانت وحود تاريخ أولية هي ماله دل كان صوماليا ضد بأسوها الجميع دل كان صوماليا ضد بأسوها الجميع مركز دتكي أسوها الجميع بالرها إن متقنا مانتا wax laga weydiiyo laakiin dhulbahanta oo arintii suu yahay oo waxa uu la joogo iska yadhahay inuu dhaho anaa daraawiish ah anaa soo halgamay anaa mataqaan anaa noocaas isfaaniyo maalin walba anaa nolol yimaado daraawiish baana waxa aad ugu xunahay dadkan ku saabsan qabiilkoodana waa fahansiinayna waxay yihiin qabiilkeenu dad iska danyaro weeye waa dadka iska jifida maanta isaaq dabada la galay dadka yaryarka ah weeye see waxay yihiin ilaahay baa idinku dhaashay maanta ninka isaaq guumaysanayo oo isaaq hoosta la galay dabada isaaq la galay halka isaaq yani fatafristay raba in uu dad la xifaaltamo waa kee dad buu rabaa inuu la xifaaltamo isku soo dharariyo waana mataqaan wuxuuna sheeganayaa inuu yahay qabiil la dheera ah isagiina waa la guumaystaa سيء دعوة أدونك بحاجة دعوة ولا ما أرى قبيل الصوماليين وقرني قال الجوجو لكم يستو ولا ما أرى قبيل قرني قال لبعض كون يستوي تماك قبيل لدى الصوماليين قبيل لكم يستو وأنا البهانة أهيني أركي ونعيد أرى اجتماعات إلى هذا الاجتماع شيء برادة الجواب السلام وكاقا التلي سودو عاو برنامجك حسارية غير لي البهانة الأركتين هريا هذين دراويش اسكو هيا
mataqaana ummadda Soomaaliyeed iyo majeerteen iyo magacii hartiba waa ilaawan isaaqa furtada la galeen waa gun dhashay waa khadiisiin iyo mataqaana dad dhaanaama aba isku jiraan waxba kala garanayna wax ma garata ah waa garanaysa cali khaliif galleer oo dhaadhaana ka dhashay oo Minneapolis ka tuugsada sidoo kale waxa ka dhashay rag la yaqaan oo iyaguna de Axmed Karaan soo miiran oo dhaadhaama ayo de aqli ba aan lahayn siyaasiyiin aan ahayn marka taliye bal ragaas maxaa ka leedahay adigu waa mataqaana jaariska ku siinaya bal ragaa maxaa ka leedahay dhibaato ay baadilan social media hana qarracda la jooga isaaqna maanta u guumeysanayo qarnigan aan joogno 2018 sanadka aan ku jirno qabiil la guumeysto oo Soomaaliyeed oo aan ahayn qabiilka wali ma aragtay maxaa khaliifow wax fiican ma aragtay in la isfahmo waa fiican ma garat صح dhulbahantaa ka hadlaysaa dhulbahantii hore maaragtay daraawish bay dad adag bay ahaayeen laakiin dhulbahantaa maanta jooga dhulbahanta maaha dad iska masaakiina weye isaaq baa iska wasa oo iska guumaysta niman la haystayaala macnaha maaragtay oo siyaasigooda ugu roonna waa cali khaliif galleer hargeysu wuxuu ku cunaa caloolay ma fahamtay waa gartay sax hargeysu caloolay ku cunaa waa maskiin faysal cali waraabe iyo muuse biixi uu ka teetal sarreeyo uu hoos fadhiyaa dhulbahantaa maanta jooga waa maxaa cunaa weeye harti ayagaa ceebeeyey ayagana ceebeeyey daarood ayagaa ceebeeyey lacagta biska wadaaba waaba ayagaana ceebeeyey haddaan beesha hartinahay annagu warsangeli waa politikiyan way waa dad waxa maaragtay ii sheegay ma jeerteen warsangeli dhulbahante harti markii loogu awood badan annaga dhulbahante maanta harti haddaan magaca harti dhulbahanta u naqnay annagu isaaq cunabay hoos والله بين ما مجا ما تهرتي مركي لو مجا هرتي waxa ku ciyaaray ee dhulka la galay ee la ogaa in ay yahay dad soo jireen sharaf iyo ciise adduunkan ku nool ee dagaal ay galaan aan laga guuleysan waligoodna dad soo guuleysanayay dad soo baadilayay maanta inaga iyo magacii harti soo lama dhihi karo dhulka waxa la galay oo hog mataqaana ku dumiyay reerkan la yiraahdo mataqaana baata fiiriday day beesha dhulmaante maaragtay maanta annaga wayna ceebeeyeen harti haddaan nahay ayaguna nalama hadli karaan annaga nalama hadli karaan annagu ma jirteen baan nalama hadli karaan ma fahamtay sax nalama hadli karaan dhulbahante waa dadka ugu liita harti maanta dadka ugu liita harti weeye waa dad dufoobay waa dad aan aqli lahayn waa dad maaragtay ii sheegay war aniga haddaan maanta nin ma jeerteena ahay nin dhulbaanta inuu imaamulo aan hoosta waan ogolahay anugu nin ma jeerteeno hartiya baan ahay anugu ma fahamtay aad bilan dheeraland doorasho Puntland ee soo socotana dhigeyso sax waxaan kaaga ballan qaadayaa doorasho Puntland ee soo socoto dhulbaanto oo dhan waan soo saaraynaa garowe iyo gaakacyo iyo boosano waan ka saaraynaa waxa weeye ii sheegay xildhibaanadoodana waan cayrinaynaa annaga ma jeerteeno waa maaragtay annagaaba maaragtay ma jeerteenkii baa xilalka laaba dawladda waxa ugu badan waa dhulbaanta guunsana maxay ahaayeen waa gartay taliya annaga dad ma jeerteen baana waana la yaqaan adduunka meel aan laga aqoon male qaaradaha dunida Mareykanka sidoo kale wadamada horumaray Kuuriyada Waqooyi waa ognahay annaga hubaan uga socda adduunka dhan marka fiirday ha adduunka oo dhan ma jeerteen baa marka taliya jeerteen baa ها ما جرتين بايز مركا دادا كان ليرا dhulbaanta maanta hadaan dhaho ha la isku ma wax isku dhareyn leeyahay hadda nin ma jeerteena iyo nin dhulbaanta markii halka wada marayaan faraha ilaahay ma simin moogta waa shanta farood waa kala leeyihiin markii halka marayaan waa la kala garanayaa ninka laan dheeraha ah iyo ninka laan gaabka ah marka hadda maanta hadaan dhulbaanta horeyno oo isaaq iyo iidoor liibaan aad ka saarno maanta hadaan ka saarno mataqaanaa iidoor iyo waxa kan guumeysanaya ما لديه كلام مقعي هرتي إسراف كلها والسوء اللي يعني. ور محا خليفو هاينا مشرتين بين هاي دولة بنتلان بين هاي والبهانته
والله بنتلان وبهانته وسيرو أجاسميال سراكيل اللي بانو أي أوب بدن حرتي صح تلي isku midba ma aha dadkan la yiraahdo dhulbaantii hore ee dhulbaantaha maanta jooga isku mid ma aha wax badan bay kala duwan yihiin waayo dhulbaantii hore wax أنا عادي أدخل سلامي أنا عادي laakiin dhulbaantaha maanta jooga fadlan lacag ku shuba ma baqash wax la yiraahdo lacag أنا فير داي وان كساريا dhulbaante harti waan ka saaraya dhulbaante daarood maaha hartina maaha dhulbaanta maanta jooga dhulbaantii hore way ahaayeen laakiin dhulbaanta maanta jooga harti maaha waa wuxuush aan aqli lahayn waa xayawaan soo joogta maanta macnaha isaaq ku dhaqlaynaya ka war waa isaaq macnaha isaaq idoor leeba hudash fiir idoor aragtay weligood aan cidna guumaysan iyaga la soo guumaysanayay dagaal ay galeen aan weligood ay isku guulaysan bay maanta hoos tageen bay maanta waxa leeyahay khasab noogu codeeya ka war doorashada iyo wax walba khasab noogu codeeya anaga naga mid tihiin yani waa guumaysi heerkii ugu dambeeyay waxa way ma taqaanaa maxaa khaliifo ma jirteena baa tahay ilaahay yaa ma jirteen ka dhigay adduunka aynu joogno macnaha ii sheegay adaa ugu sarreeya ma fahanta aad iyo aad Soomaaliya iska daayay macnaha caalamka wasbad aad iyo ma taliya waa kalsooni weeye waa aaminsanahay inaan ahay ninka keliya ugu laadheerisan adduunyada tan maanta ay waa ka qaaday kulligiin ninka keliya ma taqaanaa oo wax kala hagaya siyaasadiisa la fahmi la yahay hawiyana dee bahdilaya wax isaaqna bahdilaya laakiin la gaabyadii isla arti ay isla ahaayeen ay ku soo laabanayaan waa adduunku way dhacay fiir day dhulbaantihii la yaqaan waxaan dhulbaantihii isaaq xoreeyay bay ahaayeen xaqiiqada markaan ka hadlo dhulbaantii isaaq xoreeyay ogaadeen u gobiyay ma jirteen u gobiyay niman harti oo barqaba bay ahaayeen ma garad صح salahan cali dhuux aadan iyo dhulbaantihii la yaqaanay daraawiishta ahaa ma hayno anigu dhulbaanta waxaan naqaanaa dhulbaanta jarjara langaab dhulbaanta dhulbaanta iskuma jiro dhulbaantii hore waa dad waxaa la dhihi karaa xataa soo dagaalamay iyagoo maxamed ninkii la oran jiray sayid maxaa cabdilla xasan aandhehe bay iska garab dagaalami jiray nin ogaadeen oo la ogaa isaguna dagaalami jiray waxaa laga hadlayaa dhulbaantaha maanta jooga sida cali khaliif galleer oo intuu khaatumo maamul la yiraahdo dhahay waa idin sameynaya marna sidii maqaaxidii furanaya marna Minneapolis intuu bac qaato ka tuugsanaya hadda dhulbaantii la ogaa oo la lahaa taariikh bay lahaayeen oo la lahaa soo jireen bay ahaayeen oo la lahaa wadankan iyaga ingiriiska ka xoreeyay ma hayna maanta macalin khaliif galleer bay noqdeen iyo yaryarkaan mataqaanaa meelaha ururtiyo oo macnaha fiir day dhulbaantii aynu naqaanay ma hayno maanta dhulbaanta waxaynu naqaanaa aan macnaha ii sheegay isaaq hoosta kaga jira waan garanay dhulbaanta isaaq hoostiiba ma tahayna dhulbaantii hore ma hayno saliye waa aragtay ha isma dhaarta inaysan ahayn wax garanaysaa dhalinyaradooda waa aragtay ilaah baa idinku dhaashay weli ma arag inta adduunyada aad baa u salaameynaa dumaashadeen taliya weliba arag inta adduunyada jiray dhalinyaro dhulbaanta ah oo inta isku tagtay garaadsaami aad baa u salaameynaa garaadsaami miyaan soo garaad kale taliya waa garaadkii dhulbaanta weeye farxaan baa la yidhahdaa waa nin dhulbaantaa weeye dhulbaantaa xalaashaa weeye maa dhulbaantaan ما dhulbaantu iskuma jiraan dhulbaantu waa xalaal iyo xaaraan bay kala yihiin kuwa isaaq hoostiga waa xaaraana kuwa boohooda degan ee reer puntlandka ah ee wadaninimada iyo magaciisa waa dad goba marka taliya waa ku wada sheekade dhalinyaro weli ma aragto dhulbaanta intay social media soo gashay qabiilkooda u istaagay maanta waa ujeedaan dhulbaanta waa la gumaysanayaa weli ma arag dhalinyaro intay Facebook soo gashay oo iskooda suxo qaabeen warbal qabiiladeeni waa kala carareene oo isaaq bay dabada la galeene bal aan isu keenno kullaba ilaa badankooda iskuma jiraan weli ma arag anigu talay inta Facebook isticmaalayay kuwada dadka ma taqaan dadka caayaya oo waxay rabaan iska sheegay waa arag oo iska yareera
waxay joogaan aysan la jirin oo iska baadileen anaa laakiin ma difaaca aragnin dhulbaante qabiilkiisa oo diidaya dhegeyso dhegeyso maxaa qalifo beesha harti anaa difaacay iyo beesha daarood ma fahanti sax dhulbahante waa labo dhulbahante reer puntland iyo dhulbahante isaaqa aad iyo aad kan aniga dhulbahante waxaan arkay dhahaya somalilander baan waa gun dhalay sax oo in gubeeda laangaab laangaab sax taliya dadka hadda buuhooda degan waa garanaysaa dhulbahantaha buuhooda degan puntland bay aaminsan yihiin maalmihii dhowey tukaraq lalahaa tukaraq somaliland baa qabsatay iyo halkaa faanka mid baan rabaa jaaniska mid baan rabaa inaan kaga faa'iidaysto maxaa khaliifo sax taliya oo kumalaya ciidanka difaaca gobolka cayn ee magaalada buuhoodle aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay dhufayska halkaa ugu jira maaragtay reer buuhoodle shacabka buuhoodle iyo saraakiisha gobolka cayn aad baan u salaamayaa maxaa soo haray waa jaamac siyaad oo laascaana gatay dhulbaanta iskuma jiro jaamac siyaad baa laascaana gatay jaamac siyaad baa isaaq noqday jaamac siyaad baa tuuga noqday jaamac siyaad baa laangaaba jaamac siyaad baa nagumeeyey haddaanu hartina hortii taliya waa aragta hadda dadka soomaalidii waxaa la dadkan puntlandiidka ah ee isaaqa dabada kula jira waa hadda ninka la yidhahdo waa aragta camay oo kale iyo reerkiisa waa dad puntland ay ku weyn tahay iyo magaca hartay kuwa kale marka puntlandiidka ee somaliland dabada la gelaya maxay ka helayaan waa aragta hadda dhulbahanta waa aragta puntland kala bar iyagaa leh wasiiro badan bay ku leeyihiin sidoo kale waxay ku leeyihiin maxaa khaliifo puntland markii la dhaho majeerteen iyo dhulbahanta waxa ugu badan waa dhulbahanta guud xildhibaano wax sax waa wax la wada ogyahay macnaha saddex wasiir bay ku leeyihiin somaliland fiiri waa biyaha maxay tahay biyaha maxay tahay waxaan wayna gumeeyeen dhulbaanta wayna gumeeyeen aqli ma leh maskax ma leh waa dad xayawaan wasiirka arrimaha biyaha qaybta biyaha iyo mataqaana bulaacadaha weeye waxyaalaha noocaas ay ku leeyihiin hadda ogaadeen baan la yaabaneen oo wax ka sheegin ogaadeen markii loo fiiriyo dhulbaanta ogaadeen waaba gob dhashay oo aan awal haysanin laakiin dadkan waa ogaadeen waxa weeye ogaadeen ma turkina weeye siyaasadda daaroodna annaga hayna haddaanu ay majeerteen aad iyo aad may waxaa la yidhahdaa mataqaanaa nin baa wuxuu yidhahday nin aan talin jirin hadduu taliyo nin aan tegi jirin baa taga waka marka waa saas wey xaaladdu waa saas dhubaanta u jeedaan maanta waa boorku waa iska jifil maxaa qalifu day maxaa qalifu sugsu qaybta fiiriday laba wasiir laba wasiir bay ku leeyihiin dhulbahante laba wasiir bay ku leeyihiin somaliland waa lagu gumeeyaa waa lagu gumeeyaa caynaba iyo carra dhulbahanta waxaa iska lahaa dhulbaanta lah maantana isaaq baa leh war annaga harti haddaan nahay harti baan nahay anagu keertee singeli dhulbahante deshishaana macnaha annaga na gumeeyey waxa weeye waa dhulbahantaha maanta jooga weeye maahan dhulbaantii hore maaha haa taliya anigu teeda kale mukula dardaarmi lahayn dadka aniga horta waxaa maalin walba aan leef ku soo galo u sheegaa warardee maamul la yaqaan samaysta maamul mataqaan nidaamka federaalka buuxiyey maamul la idinku tari karo la dhihi karo war waa raggii dhulbaante ahaaye wax loogu qaybiyo sida puntland loogu tariyo aad baan ku salaamay laakiin cali khaliif galeed herad uu marna furanayo marna xirayo waxaa maamul lama dhoo taliya waa aragtay hadda meeshaas waa meel yara marna la furo marna la xiro marka taliya dadkaas maamul in la dhoo dhista oo idinku isu taliya ilaan isaaq inuu idin taliyo waa gunnime ka weyn ma jiro inaan weligii dad gumaysan inuu idin gumaysto oo gumaysi idinkaga bilaaba idinka anigo nimankaan dhulbaantaan waa masaakiin wey waa dad yar dad iska bahdilan oo mataqaan naagahooda inimakooda waa arag taliya isma dhaabaan waa khaniisiin iyo naago mataqaanaa facebook ku waashay wax ay yihiin aysan jirin may maxaa khalifu dumarka waxa weeye dumarka dhulbaantay iyo dumarka soomaaliyeed oo dhan waxa weeye anagu waan sharfnaa
dumarku sharaf bay leeyihiin dumarka Soomaaliyeed sharaf iyo cisi bay leeyihiin الشرف maxaa soo haray ولا waa صح laan gaab inuu guriyada صح مثلي waa dadkan oo dad iska baadilan hadeer day inaga waaninayna oo wax u sheegayna oo le war dadka warsida isku dhaaba oo maanta ummadda Soomaaliyeed gabooyiba wuxuu marayaa inuu sameeyo maamul goboleed la yiraahdo caqabad laan hadii waa gabooyi hada fiiri waxa loo marayaa dhulbaato baad dhulka is dhigay wallahi waa la yaabaa taliyay dadka dad iska baadilan maxaa khaliifo dhulbaanta waa tolkeen waa niman la gumeeyey isaaq baa gumeeyey isaaq bay doorteen ayay u talaa waa niman iska saakiina wey ha magacii hartina dhulbaanta ku ciyaaray magacii harti waxaa ku ciyaaray dhulbaanta burburiyey dhulbaanta tirtiray anaga dhulbaanta daarood waa ka saaraynaa maanta joogo weliba waa ka saaraynaa waa wada khriisiin iyo waa maaragtay ii sheegay raggooduna xiniyo male ها تلي وحال الربا قروا كوة شوقة إلهي متقانا بوصاصو قال كعيو ميل والبو إن لقى ترحيليو وإن متقانا قواري لو سميو هوي والله إيه سيد رحوين تدقيس معاه غليف سيد إلهي رحوين تعمل ترحيلي ما ترحيلي ما أنت كل واحد صار يقول لك بنتلان والله صار قصة waxaan ka sheekeynaya garow ka dhacday hadda koor nin ciise maxamuud wuxuu dilay nin eelay ma ogta markii ninka eelay markuu dilay kab iga gadmiyo dhawax saas adigu kullaba xabad buu ku dhuftay eelaydii oo dhan baa mudaaraaday marka wax dhaaray ninkaas u baahnaa inaan dilo markaas nin qaaqaan la yiraahdo ma taqaana taliye saldhigeed meeshka wuxuu dhahay idinkoo dhan inta ama iswada raaco meesha nooga guura ama qiiqda iska daayay buuqa marka waa dad iska noocaasa waa sidaas oo kale wallahi raxweyn baa maanta la qaatay waa dad ganacsanaya oo waxay rabaan sameynaya oo jawaar uu kamid yahay oo rag wax u dhicin kara hadli kara ficiltami kara laakiin maanta dhulbaanta intaba lagu maayo dhulbaanta waa dhulbaantii hore kuwa hadda joogo wax dhintay weeye oo dhaadhaama ah ilaahay ma taqaanaa dadka ma wadsimin maanta dadkaas magaciisa dhulkay la galay maxaa qalibu oo kuma la yaatay waxa tahay mas'uul sare الله كبركيو سراكيشة إيش ما شرتين يقولوا بنتلان يسوشيال ميديا كم تاي إيش ما شرتين أدي كوتشعلين ما قرأت فيسبوك أنا أقول حرية فيسبوك ما شرتين بعض بسكله إن كله لو يريرا ما يتكلم عليه فيسبوك ما شرتين بسكله قربا ما شرتين باله سومالي ما شرتين باله الدون كذا ما شرتين باله ما قرأت مجالها تشوك ما شرتين بحكومة أنا مجالنا جو مشارتين بحكومة عالم كحكومة بس كده بوينتلاند يا سومالية مشارتين ويفهم بديهين بالله معنا معي كفانا ده تاريخ دليهين أدونا وحبيكين معنا ده أدو معنا معنا كفانا طلوا حناشك معنا معنا يستا قف كفانا كروين وهايستو قف وهايستو كفانا لكن قف أول ما يستا إنه قبل لأن وحبا حيسن أنا كفينا اللي معك أنا وكفيه قاعد عمنا سياسة حكى لنا كفيه موقت كفيه قاعد عمنا بترتين كفيه قاعد ما يتلي سيدرلاند ديري أنت ما تقانا ترجع سياحتي وكفيه عبد الله في كسو جلسة واحد تكتب فيسا لاندير نود واحد لكن بقى يا أو كذا سمة تقانا سربة وحش شيء وحس والله نجابني هدي واحد الشيء رنت على الشيء كان ده لا يجري اللي هالمرة بعد ما نساي runtu waa lagu dhintaa dhulbaanta waan ka baxayaa waxaan ku leeyahay maxaa sheekho sow aad baan kaaga mahad celinayaa inaa maaragtay ii sheegay inaad dusha ka marto charter oo dhan inaad dusha ka marto aad baan kaaga mahad celinayaa beesha dhulbaantana waxaan leeyahay dhulbaantii hore la hadli maayo dhulbaantii hore daraawish bixaayeen taliyihii hore ciidanka daraawiishta puntland taliyihii hore aad baan maasan tahay taliya bakti qurusan dhufayskaaga iskaga tirtaliya dhufayskaaga iskaga jiro ku jeeda dhufays baa ku jidha laangaabiyo oo dhan baa geesiskaa taagan isaaq iyo hawiye iyo waxaan la aqoon marka taliya dhufayskaaga iskaga jir laangaabyadana sidaa u bahdil insha allah aad baan ku salaamayaa waa anigu arko aad baan maasan tahay mas-uul aad baan maasan tahay kaa mahad celinayaa aad ii sheegtay allah kaasina waxa uu ahaa horjooga sakifan taliyo hore ciidamada daraawista puntland haddana dhufays kaga jira germany motion tigay jaamac tigay aad baan ku salaamayaa soo dhawow maxamed karuur aad baan ku salaamayaa
adeer dadkan dhulbahantaha la yidhaahdo waa dad bahdilan waa dad yar yar laangaabiya ah baksiye ah wax ay la joogaan aysan jirin magicii hartina ceebeeyey isaaqna maanta dabada la galay maxay yihiin de maanta majeerteenkii waa aragtay waa tashaday oo qabiil walba waa tashaday habar gidir waa tashatay majeerteen waa tashaday qabiil walba oo soomaaliyeed maanta waa tashaday dhulbahanta waa ujeedaa maanta isaaq baa gumaysanaya isaaq oo aa aragteen weligii inuusan cidna gumaysan taariikh uu leeyahay aysan jirin dagaal uu galay uusan ku guulaysan dad iska yaryar ahaa oo dadka kabaha ka daba qaadi jiray bahdilan wax ay yihiin ay isla joogin baa maanta hoosta ka galeen marka maanta iyagay maciid bideen oo waxay dheen bal iyagu inay noo dhaamaan majeerteen iyo dadka kale oo hartiga ah iyagii bay hoosta ka galeen iyagiina de saasaa loo bahdilaya maalin dhowto xitaa waxa ujeeday wiil dhulbahanta ah oo burco mataqaan leeyahay burco la leeyahay waxa ii dhuuqdaa waxa maxay ahayd lugaha iga dhunka lugaha amaan cumar jeesto aad baan kuu salaamayaa dumashi queen of dayniile aad baan kuu salaamayaa iyo dhammaan saaxiibada sharafta leh ee barnaamijkan caawa ay ku jiray waxaan leeyahay dhulbahantow hurdada ka kaca dad dhintay baad tihiin qabiil harti la yidhaahdo waa ceebaseen bal maxay tahay maanta waxa sharafta adduunka ay ka leedahin maxay tahay maalin walba markii layda arko dhilooyin iyo khaniisyo iyo wacalo iyo ay dhashay walba waa idinka niman waxaa leedihiin aan hadli karin karti iyo raganimo ay social media kusoo fadhiistaan aan lahayn niman waxaa leedihiin markay hadlayaan sida dumarkii dadka ka gees hadlayaan niman waxaa leedihiin aanba karti iyo dhalinyaradii dhulbahantay ay kala tagtay aan isku soo jiidi karin haye maxay tahay maanta dadka tolnimada aad sheeganaysaan maxay tahay iyo dadnimada aad sheeganaysaan dad bahdilan baa ahaydeen markii laga yimaado xilligii aa lahaydeen daraawiish baana maanta la joogaa maanta maxaa tihin ila nin walba maanta waa la fiirinaya wuxuu yahay waxaa idin leeyahay dad iska bahdilan oo bakti ah oo yaryaran oo jarjara oo ifsaaq dabada la galay oo wacala ah oo khaniisi ah oo meel ay ka soo jeedaan if iyo isri aan lahayn baa tihin dhulbahantow dad dhintay baa tihin tegay jaamac tegay baan taana siinayaa oo ah muwaadin reer puntland si uu isaguna halkaas runta uga sheego waxa jirana uga hadlo annagu adeerka caliye waa mataqaana runta sheegaynaa aad baan ku salaamayaa tegay jaamac tegay barnaamij kusoo dhawow taliye laandheer waa ku salaamay adiga dhammaan asxaabta meesha ku jirtaba aad iyo aad kusoo dhawow barnaamijka waxaan ka hadlaynaa dadkan dhulbaanta leeyahay ee bahdilan ee aragtay meel walba qarnigan la joogo qabiilkan la guumaysto ee aad aragtay intay magacii harti ka baxeen inay isaaq dabada la galeen dadkaasaan ka hadlaynaa oo runta u sheegaynaa ilaa wax runta u sheegi waayeen war iyagoo dabada kaga jiro waa dad baananayaan waxay leeyihin daraawiish baana in runta loo sheegay ma rabaan marka waxaan u gartay waa baraarujin reerka ku socota yaa waa baraarujin reerka ku socotaan u gartay barnaamijku waa baraarujin weeye baraarujin anagu wax inaan dad ayno oo mataqaana fikir baashno waa meesheeda laakiin wax ugu weyn waa mataqaana baraarujin iyo meesha ka kaca iyo waano wax isku dhex jira iyo karbaash maasha allah waa gartay waxaan leenahay dee heeriyadan maaragtay aad micnihii bustaha ka dhigateen oo caadi waa la qabsadeen wax haddii dadku wax la qabsadaan dee waxba lagama bedeli karo aad iyo aad sax marka waxaan leenahay meesha iska qaado maaragtay dee karaamadii iyo sharaftii la yaqaanay oo laydinku yaqaanay soo celiya sidaana si ma ahane micnihii qabiil gumaysta dunida kama dhacdaba adduunyada xaggee ka dhacday adduunyada kaba kaalayba hadda waa aragtay qarnigaa la marayo sanadka waxaa la marayaa 2018 wallaahi oo bilaahi oo tullaahi maamulo aan weligii arag baa soo baxay galmudug waa aragtay haddana soo baxay lugaha isku taagtay maanta habar gidib baa leh maanta dadna waa la xifaaltami karaan qabiil ahaanna waa lagu tiri karaa maamulka galmudug ee habar gidib bal maanta maxaa la dhihi karaa dhulbahanta maamulkee la dhihi karaa khaatumo meel la yidhaahdo cali khaliif meerad ka dhigtay marna somaliland iyo waddamada yararka ah oo beesha caalamka intuu u tago lacag kaga aruursado iyo marna uu xirayo maahe wax kale aad u maaragtay dhulbahanta taariikh ay leeyihin iyo maya niyo horta nimanku taariikh waa lahaan jireen nimanka maaqan dee dhashii baa ka xumaatay kowdhe dadkii damoo la dhalay oo dhulbahantuhu ay dhaleen dee dhashii baa xumaatay niyo waa doorsoomeen ma garatay dhashii daraawiishtu dhaleen maaqaan niyo islaamihii maaqaan waxbaa kolley jira waxbaa khaldan waxbaa jira mar waxa u maleeyaa wax weyn baa khaldan marka insha allah waxaan leenahay nimanka meesha iska qaada
ilaahayna xaqa ha inay tuso maamulkiinana inaad micnihii maamul noqotaan oo dadka wax la qaybsataan annagu waa taageeraynaa waana soo dhawaynaynaa khaatumo maamul maaha tigay jaamac tigay maamul khaatumo maamul uma aqaan anigu waxa u aqaanaa meherad nin u furan maalinna uu xiro maalinna uu furo laakiin maamul caadi ha la yimaadaan dee maya ha wax la imaada wax muuqda ها رج وحلا قيب صدق وصوب حنا دتك كده مقطع بارنا وضد صرف لهاتين وما سوى لسان هيريدان اسكريدا قف إني تعلم وحني شيء هيريدا اسكريدا وروحك نيو wax ku siiyaba la wax badan ba aragtay laakiin nin wax yar ku sheego waana ah wax yar ba aragtay marka dhulbaatamato dhanata wax sheeyay kooda aqliga xitaa wax u maleeyay ilaa iyaga caayis wax ka sheeyay maya dhalan doorsi baa jira dhalan doorsi weyn baa jira marka waxaan leenahay ilaahay maaragtay dhasha iyo maaragtay islaamaha iyo raggii hore la yaqaanay wax dhali jireen dhashii daraawiista ilaahay dhiigooda ha soo celiyo intaasaan leenahay waan ku salaamaya aad baan ku salaamaya timad haye abu haye ninkaas aad iyo aad ugu mahadsan yahay barnaamijka waana idinla taliyaya waa haddii aad wax maqlaysaan way dadka la yidhahdo dhulbaantaha qarniga la joogo la guumaysto iska bahdilan insha allah qof kale ayaa chance siin doonaa oo isaguna barnaamij ka qayb qaadan doona qofka reer Puntland ama dhulbaanta wuxuu yahay anigu waa soo qabanayaa waayo anigu qof Soomaaliyeed baan ahay waxaan rabaa inaan halkan uga soo jeediyo talo iyo waana iyo wixii ay ka qaadanayaan walaalaheen Shaafici Xirsi Cabdixakiin Cali oo ah dhulbaanta soo qabanaya aniga cid aan halka karbaashi ma laha qofkii ilaa ii soo qabo soo qabanaya barnaamijkan uu ka qayb qaadanaya waayo qofkan waa u leeyahay jaanis waa mataqaana rabo inuu amaal cumar jeesto dubaasha aad baan ku salaamayaa maxamuud maxamed daahir soo dhawow maxamed carab aad baan ku salaamayaa adigana iyo dhammaan saaxiibada kale ee barnaamijka soo geli doona waxaa idin leeyahay dhulbahantow sida isku dhaama oo gumaysiga kan iyo baktiga kan ay ku jiraan iska daayay aamina ina cali aamina soo qabanaya dhaaray carab soo qabay dhaaday aniga carab iyo curle ma dhaho waa iska kaa soo qabanaya waayo qof dumar aad tahay barnaamijka inaad ka qayb qaadatidna jaanis baa kuu siinayaa waxa ka hadli kadibna aad ka hadashid waxa kalena ma taqaana aad iska diisid fartuun baa soo qabanaya fartuun diini baa soo qabanaya fartuun diini kuma lahan invite call kuma laha baa maleeya marka waxaad samaysaa soo dalba adug oo kusoo qabanaya dadka aan la hadlayno waa dadka dhubaantaha la yidhaahdo ma taqaana iska bahdilan dadka kaliya aan caaw barnaamijka u soo galay leefka oo aan rabay inaan ka hadlo iyaga ahaayeen ar isoo qabo bay dhahday ar isoo qabo meesha looguma baahna meeshatan dagaal kama socdo waa facebook leefkaygi wey cid ilala ma laha qofkii halka ar isoo qabay waxa soo qora ama blog baa iska saaraya ama intaan soo qabta ku dabanaya aniga ala facebookan marka iga daaya ar isoo qabo iyo bakbakdan ay igala dhamaan weydeen iga daaya dhulbaatu waa ogtiin marka faraha la iskula tagana faraha qaniintaan mataqaan marka gacmaha la soo tago faraha qaniintaan tulla ayaa hartiyay baa dhaadaan marka kale facebook la joogana cali soo qabo iyo bakbak iyo daraawish baan nahay halkaas soo gubnay iyo cali khalif galeer iyo dad waalwaalan oo sixir qabo kiniin ku shaqeeyo marna Mareykanka marna ka soo laabto bac Minneapolis kaga tuugsado dadkaas idinka dhashaday yaa akhi markaas waxa leedihiin taariikh baan leenahay taariikh waxa leh dadkii hore ee daraawish maanta dhulbahanta laba weeye lama fiiriyo qofka dadka ka dhashay dadkii hore ee daraawish ah dhashii uu dhalay baa dhulbahantaha maanta joogana waa gungun dhashay yacni wax la faasiyaa rabtaan kuwii hore waxay ahaayeen dad taariikh leh dad soo dagaalamay soo jireen buugiyaasha baaldahabka ee Soomaalida laga qoro ugu quruxda badan ee Soomaaliya ka sheekeynayana gees ka galay waa kuwii horaan sheegaya laakiin kuwa maanta jooga waa aragteen adeer gaclay cali khaliif galleer dadkan waalwaalan ee waxba aan la joogin baa ka dhisaday masaakiinta ah waxna aan la joogin taariikhna aan lahayn maalin wuxuu cararayaan Mareykanka maalin waxa garow imaanaya maalin waxa leeyahay Soomaaliland intay yimaadaan cali khaliif galleer Soomaha ninkii lahaa intuu u tagay silaayo lahaa war anaga hubana la siiyo wax walbaana la siiyo anaga Puntland anaga iska dhicinayna hayta Puntland anaga iska dhicinayna hubana la siiyo mayna adeerkaayo hartiya hub lagu siinaya la gaab baa tahay cidna wax lama joogtid maanta dhulkaaga xoog baa lagu haystaa waa aragteen hadda doorashadii ugu dambeysay Muuse Biixle dooranayay waa aragteen intii loo yimaado laas aan loogu yimaaday ba wallahi billahi tullahi khasab loogu codeeyay
kaarar intii loo qaybiyey khasab loogu qaybiyey baa la khasab loogu codeeyey way u codeeyeen maxay qaban karaan haddii ay iswaalwaalaan hada dhulkaa lala gelayaa adduunkaana waxaa shaqaysa awood nin walba ninkuu ka awood badan yahay nin walba ninka uu ka awood badan yahay adeer gacal iyo waa karbaashaya wuxuu rabana waa ku samaynaya waana bahdilayaa puntland waa aragteen maamul ma jeerteen dadkii jeerteenka ah maanta dadka ugu sharafka badan oo la yidhahdo war ma reer puntland ba xaashaa kulila waa raggii beled reer libaxsan kataabta ah maanta waa ujeedaan waa tasadeen dhulkoodii waa dhisteen dadkoodii iyo dalkoodii iyo dantoodii kulli waa dhisteen ninka la yidhahdo axmed cabdinuur aad baan ku salaamayaa adeer gacal iyo leefka caawa aan soo galay baa ugu dambaysa leefyadeeda insha allah leef dambe ma soo geli doono leefkaana ugu dambeeya caawa waa leefka leefyadeyda insha allah aan soo geli jiro ugu dambeyn doonaa wuxuuna noqon doonaa leef aan ku canaantay dhulbahanti ama dadkan artiga ah insha allah waxaan leeyahay sida isu dhaala qofkii raba in mataqaanaa 2 qof ama 3 qof baa taan siinayaa waa iskaga sii baxayaa leefka waa inta ka badan waxba sheegi karno daalay dhidid baa laga yimaada saa wax ugu sheegaynay baa dhidid naga yimaada san ulaha war sida isu dhaama war cali khaliif galleer oo kale iska daaya dad xiniyada meesha la yimaada afka iyo gacanta ka hadlaya marka anigu dhulbaanta ku daalinta wax sheegi lahaa waa u sheegay waxa la dhahay abuur iyo waano yaa horeeyay baa la yiraahday waxa la dhahay abuur baa horeeyay marka waano cid وتعيها أذن واعية دقيقة مغلية يعني وانا قال مركز أنا بوحبه وانا اسمه محترين وحشيك محترين هذا ما تقول هذا اللي سد دمر عيه أو كلام قريسة مركز هو إسكاب الدين يا أنا وانا كل يوم واحد شيء يعني نطق شيء واحد ليه بد انتبه هنا سقطة بد كقرني قال لقومي بهدل الصومالي أقريتين ودن بد كلقومي استوى ذيك بد كإساق ضبط الله قليباتين dadka intay walaalahooda ka carareen gungun dhashay xaasid aan weli wax guumaysa furtada la galay baad haddaad tahay nin bahalkiya haddaad tahay nin laandeera daraawiisha orod iska celi saaqa maalin walba facebook inta ku soo dhigto gabdhahaaga iyo qof walba guumaysanaya wallaahi billaahi tallaahi waxa maqlay intii gabdhahooda khasab lagu fuulo oo khasab mataqaanaa loogu galmoodo hadhow magaalada la iska marayaa yaa isweydiinaya hal yaa weeye waa dhulbaante wiilka yaa weeye lugta ninka u dhunkanaya waa dhulbaante bahdil intaa ka weyn ma jiro waa haddii aad wax maqlaysaan dhagaha wax maqlaya baa mataqaan baa wax qaata anigu idima caayo oo ma dhahay dad saasaa tihiin bakti baa tihiin laakiin waxaad tihiin waa la sheegayaa qof walba waxa uu yahay waa la sheegaa runtaa fiican anigu cidna qabiil ku caayayo waa aragteen dhulbaante iskuma jiraan dadka buuhooda la digay ee wadaninimadu ay ku weyn tahay puntlandka magacii harti aan ilaawin ilaa kuwa kale waa ilaaween lacag baa la siiyey lacag bay cuneen waa ku marqaameen marqaan baa wuxuu malaynayaa qaabba dadkeen la siiyey dad la sixray maskaxda laga dhacay marka dadkii noocaas ahaa la marqaansiiyey qaadka lagu guray la dhahay waxaa tihiin isaaq waaba isaaqdow dhubaanto waa isaaqdow dadkii la dhahay baa maanta baan isla leenahay maanta balwaaniye kuwa reer puntlandka ay buuhooda jooga magacii harti aan ilaawin ee laandheerayaasha kuma jiraan waxaa idin leeyahay aad baad u mahadsantihiin dadka mataqaanaa reer buuhoodlaha ah iyo qof walba wadaninimada ku weyn tahay reer puntlandna aad baa u salaamaya waxaan leeyahay hambalyo dhulkiina sidaa u ilaashada war dhulkiina sidaa u ilaashada maanta soomaali nin walba dhulkiisa u ilaashanaya waa aragtay nin walba qabiilkiisa maamul goboleed u samaysanaya nin walba xuduudkiisa loo dhaafmay waa aragtan tukarraq markii halkaa dusha laga soo maray dhaay war puntland baa tukarraq ka qabsanay farmaajo garow joogay markuu tukarraq ka laabtay waxa la farmaajo markuu muqdisho u laabtayna waa aragteen somaliland way soo carabday halkaas ku soo laabatay iyo hargeysadeedii iyo meelihii ay ciidamada ugu jireen marka sheekada sheeka awal misina bay ahayd cidna kama xoog weynaa meesha tan soomaaliya la dhahaa maanta dhan baa xabadoo la isla dhacayaa cidda cid ka xoog weyn waa aragteen adiga hadda qof mateerteena oo intuu kula hadlo war isaaqba haa inuu la caytamo xitaa afkiisa cay ka soo saar waa diidiya oo isaaqba saas waayo ka sharaf badan yahay sharaf iyo waxa la isku dhaaf maamuus iyo soo jireen taariikh soo jireen ah dad la yaqaan baa nahay dad adduunka sumcad iyo sharaf kule baa nahay marka ha naceebaynina xataa rabtaan inaad somaliland isku dadhaan magaca haddii ha sheeganaya waxa dhahdaan annagu waxaan nahay dad amxaara ah baana meelaha ka soo lumay manihin dhulbaanta dhaha
aad baa idin salaamaya dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba dunida ka joogaan deeqo cali muscab axmed munas nalow idil maxamed jaamac axmed cabdinuur dhammaantiin waa idin salaamaya waxaan idin leeyahay ilaahay idin sharfo sida mataqaanaa ay ii daawanaysaan ee aad ila socotaan barnaamijyadeeda waa idin salaamaya waxaan idin leeyahay dhammaantiin aad baa idin salaamaya Soomaaliya ha noolaato dhulbahanta dabada dhulka ku dhuftay dabadu dhulka ku dhuftay majeerteena adduunka meesha ugu sarreysa uu soo taabtay saas u soo degaa marna samadu taabtaa marna waa soo degaa aad baa idin salaamaya meel walba dunida ka joogtaan iyo si walba idin maqlaysaan nimankii nolosha ka dhacay ee aragteen maanta dhulbahanta ahaa ee la rabay inay dalkooda iyo ragnimadooda difaacaan ay islahayn magaciina iyo maamuuskiina soo celiya maanta waxay sameeyeen intay live soo fariistaan inay dhahaan saasaa dhahay baba daraawiish baan nahay reer hebel baan nahay daraawiishta aad tahay maanta maad ahayd ila qofku wuxuu uu sinsi iyo soo jiran u leeyahay waayahay mar walba waayahay haddaad soo jiran u leedahay geesnimada tan iyo daraawiishnimada tan iyo waxa kale isu sheegaysa isaaq futada isaaq intuu ku qabto naagahaagana ma bac kagama siiyeen ciyaalkaagana mataqaana halkaa kuma dhegeen uma gumayso ma dheheen waraa Somaliland baan nahay dheh wiilashaadiina lugaha ii leef lama dheheen tiyaalkaa la qabto markaa lagu dhawo waxaasaad ku sheeganaysaan dhulbaantay diinta allena ka saaray diinba maalistaada saa haddaad magaca harta ku ceebayseen annagaa idinka baxayna magaca harta waxaan magac kalaan la soo baxaynaa insha allah magac cusub baan soo raadsanaynaa ilaa magaca harta waa ceebayseen laagaabiyaad juhala baktiyo callo war intaa ka badan wax uma sii sheegi karo waa ku wareeray reerahan sidaan wax u sheegi kara mayo allaha soo hanuuniyo keliya baa dhahaya tukaraq maxaa ka leedahay kulaha tukaraq adeerka cali rag baa lahaa raggii lahaa baa hadda haysta tukaraq waa aragtay Somaliland bacbacbaa soo dhaaday waa timaaday bal maxay uga laabatay hadday wax isku hayaan ilaahay baa idinku dhaaday wax isku hayaan maxay uga laabatay habar gidir waa aragteen maanta galmudug maamul la yiraahdo bay la soo baxay maamulkeedaas si habsamay si yani maanta waxa la dhihi karaa si maamul wanaag maamulkooda u wataan waa maamulkooda dowladda federaalka wax waa kula qaybsadaan rag waa la dhihi karaa rag waa ninka gurigiisa markuu soo wanaajiyo guri federaal wax u doontaa laakiin adigii baa guriga isaaq kugu gumaysanaya oo bakti dhalay oo laangaaba see gurigiin adeerkaa u aadaa marka guri ina adeerkaa seba u aadaa sharaf ugu noolaataan anaa magac harti baan sheeganayaa maanta waa aragteen nin walba maamul goboleed business laakiin dhulbahante maalinna cali khaliifka leer baa maamul la yiraahdo qaatumo meherada intuu maalinna waa albaabadu iskugu laabaa markuu lacag waayo oo kharashaadku dhamaado inta kale halkaas bal xageelo waa arkay maamul goboleed aan lahayn baalkii maamul goboleed aan lahayn madaxtooye ma lahan guri jajaban baa la galaa madaxtooyada wallahi maal dhowta u jeeday iyadoo la soo dhigay maal dhowta u jeeday video la soo dhigay madaxtooyada galmudug wax la madaxtooyada galmudug aan dhigay madaxtooyada khaatumo ayaa waxa lagu qabtay shir looga hadlayay fiiri ma asbaab madaxtooyadu waa kala kacsan tahay mise wallahi waa guri xitaa fiila ma waa guri waagi hore maxamed siyaad bar uu ka tagay jajaban oo shamiita ah baa saa intii loo soo dhigtay xasiig saa loo dhigtay baa waxa la leeyahay oo madaxtooyadii khaatumo marka dadka noocaas baa maanta u jawaabaynaa kor oo wax u sheegaynaa oo baktiga ah ilaaha baa idinku dhaashatay maxaa wax ka sheegnaa iyagii baaba guri jajaban oo shamiitaysan oo xasiig la dhigayo oo la farfariisanayo waxay leeyihiin waa fiil khaatumo bakti dhalay intaa ka badan uma sii jawaabayno aad baa idin salaamaya cadnaan aad baan ku salaamaya doonita la faarax axmed cabdinuur waan leeyahay maanta aad baa idin salaamaya leif caawa kana ugu dambeysay dib dambe ugu arkimaysaan waan idin salaamaya